horta hal mid jirto dadkan anaga hadda madaxda noo ah horta meel banaanka ma laga keenin inta shiinaha iyo meelahaas dad shiinees oo anaga ka seenin ma anaga naga soo dhaxbixin kulli waa waalidiinteena waa walaalaheena waa adeeradeena waa wada naqaana anaga naga soo dhaxbixin marka waxaan rabnaa kuwa had soo socda anaga naga soo dhaxbaxayaan marka waxaan rabnaa in cadaaladda si hoose hadda dadka aan soo saarno oo cadaalad yaqaan sidee ku soo saari karnaa ka soo qaadno guriga oo kaleeto waa dawlad yar wuxuu leeyahay aabbo iyo hooyo sidaa wada ognahay aabbaha madaxweyne waay ma fahanti gudoomiyaha baarlamaanka waxaa ka hooyo mataqaanaa curadkii aan ka dhigno ra'iisul wasaaraha intii kale xildhibaano iyo guddiyo aan kala haweenno gurigii caadiga markaa joogno marka waxaa la rabaa ilmaha midba midkuu ka weyn yahay inuu ixtiraamo midba midka uu ka weyn inuu ixtiraamo ilaa iyo aabba leys ixtiraamo dowladdaas dowlad wanaagsan dad isjecel gurigaas ay ka soo baxaan taas guriga ahayd ganjeelkii ka soo baxnay xaafadii imaanayna guriga kugu dhagan iyo kan kale kugu sii dhagan labada dhinac ka haayo ayagana ixtiraam u muuji ha ka amaan helaan nabad u muuji amni u muuji isjecel u muuji taas xaafadii ku imaaday haddana aan u gudubna degmada dhan ha noqoto degmo la isjecel yahay la is ixtiraamaayo oo fiican oo nabad ah kadib aan u imaano dowladnimada markaas waxaa imaan karta dowlad oo caadil ah oo laga soo wada shaqeeyey oo loo dhan yahay yaa imaanaysa marka bahasha hoos ka soo bilaabno aniga cadaaladda intaasaan ku darsana oo mahadsantiin